نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله حالي هلكن waxaa ka baxay muxaadara Sheekh Mustafa ujeediyay oo aad iyo aad wanaagsaneyd oo cadeynaysa dib u dhaca iyo musiibada dadka muslimiinta haysata oo waxyaalo islaamka ku booriyay inay ka dhaceen sida darteed layna qabsaday inoo taliyo wixii la doonana laynaga sheegayo laynaga falo waxa kale oo ku macaanay oo bidintiha tatabayanu al-ashyaa'u dib u dhaca iyo maarta qaflada iyo dadka waxa ku jiro aakhira ka qabaan in lagu xujisiyo mawduuc zuhdi wal warac iyo daarta dambe si muxaadarada xalay baxday ayna u sameeynin duqyaan dadku maada ka buuxda ilaahay lagu xidhnaado way yartahay qulubtu diyaar maaha dhalinyarada yaryarkoo soo kacay ugu badaha ku dhamaanaya waa dhiirigelin wanaagsan bay ahayd oo laga warramay cudurradii laakiin in la raaciyo daarta dambe oo ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka aad ugu booriyay oo siduu ilaahay quraanka dadka ugu tirtirsiyay daarta dambe oo adduunka ugu tirtirsiyay in daarta laga hadlo oo laga yiraahdo kalimo waa macaanaan taa intaas kaga bixi mawduucan oo jaanib yar baa ka taabanaya beer yar baa ka taaban ilaahay subxaanahu wa tacaala وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين معنى حديث كلا النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم يقيمات يقيمن صلبه فإن كان لا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث لنفسه آياتاس يا حديث كان يا مهمادا صدحداس قضبدي علمada aha oo muslimiinta aha waa maaragtay dandan xawlo waa aayada iyo xadiiska iyo mahmaada soo socota dhakhtarkii waqtiga nabiga joogay sallallahu alayhi wasallam waxa la oran jiray oo ay lahaayeen asxaabtu al-Harith ibn Kalada baa la oran jiray ninkaas wuxuu ka dhashay reer Taif oo ahaa nin reer Taif oo ahaa in aad tabiga u yaqaanay oo ahaa cashaabta sida darteed nabigu dadka waa u yeeri jiray salawaatullaahi wa salaamu alayhi ninkaas waxa jirta kalima xikma ah uu ka tagay وحيري المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء يعني عذره دمك سوري على وشة حديث وافق صيبوت حافي ما ضر دمك سوري كورتقي سلالين يكسوري فاسمر قادان الدقو أنو شيخا كورمي kormari maayo xadaraadkii wixii lagu soo sameeyay waxaan ugu soo daadagayaa Soomaalida iyo xaalada hadda maanta ay ku jirto wax yar baan ka taaban waqtigiina waa la xiriiriyo waxay ka dhigeen 6 daqiiqo ana aamus weybo dadka ma oran karo waxa weeye maamaadaas iyo aayadaas iyo xadiiskaas iyo wixii la midabay aad iyo aad u shaqeeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala abuurka qofka
وأبوري أفر شيء يكو أبورنا وجدك كجرا أفر تاسع من مركب بدني كعذر بدعية وحوي الشيء وهو الرئية وحرارة الحار وحدد كيسة بارد قبو يابس محان الهداي يقيانا أفرتاسد كأبورة ورتا أدوك جركاga إلهي ku abuuray xal wixii kugu meersan oo xayawaana oo geed ah oo wax kasto la cabo la cunaana afartan ka kooban yihiin marka ninka xikmada leh oo tabiibka oo carabtu waxay yiraahdaan sal mujarriban wala tasal tabiban macnaha wuxuu socdaa ninka wax iska barta hada ninka ka soo baxa oo wada doctora wala khibra lahayn nin khibra la baa iyo suroobi karta inuu ka horeeyo khibrada waa cajiib weey hada hay'adaha shaqo u tagto shahaadadu waxa lagu leeyahay in soo shaqeysay tajaaribtaadu maxay tahay bal oranaya moogta marka afarta shay hada misaal insiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka laba shifaabu ku sheegay laba kaliya ووحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ووحي لبس باشا ليراهدو محاكو الشنيرة محاكو احترت مرقى آياتا آخر هو مرتدى فيه شفاء للناس إلهي بأيدي سبحانه وتعالى اختار معه نمينا مؤلنين عليه السلام ربي أذيك أبوره قرانا بنيادة وحد كسمي سنتي وحاتاي بأيدي فيه شفاء للناس كلمة هو بدنك يجركوي وحمرك كلو إلهي سبحانه وتعالى إنه صوت جوا بدنك يجرك وتنظر خاطرته الدويان وننزل من القرآن ما فيه شفاء للناس كان له الروح ده هي قلوب ده هي آخر هي إله لو حرم سبحانه وتعالى وين فرض شفاءك واقفنا وضدك يسود وياه ملك كان مركا إني شيء تبعيس ملك وحقوريه حار يابس وي بدي قدرة إلهي وساسه صوب يما هذا كيلو ما عبد كرتو خطر بتكون قريه وواحد سورة أنا دول لمتى هذا روع عبد هذا بيا طبعاً وأنا وحشو مية صوب طوامعي وإنجيك وأنا كليل أيوه في عين مركب وضياش جدكم وحقنا قبل باقليا قف ولدو كنت كويحي كدم بيا وحقليا قفك قبل باقول علانيا marka baa yeeyay rimaad ku rabaa wuxuu fiican yahay marka odayash risiisa u cabaan dhalinyarada wixii marka 40 iyo ka hooseeya uma fiicna inay cabaan biyo iskaga darayaan marka biyaha way jabinayaan soo biyo wuxuu ka kooban yahay laba shay waxa weeye baarid radbi taabna wax qoyno biyaha ku shubaynaa hadaan rabno wax kulul biyaha ku shubaynaa marka biyuhu labadana ka kooban marka cagsi isu yihiin nabigu isku darsan jiray marka soo kan kuleelkiisa u jabiyo kana qabowgiisa u jabiyo marka biyuhu waxay ka abuuran yihiin waa qabow waana maxaan ku raadayay qoyaan labadaas bay ka abuuran yihiin marka waxa loo baahan yahay oo waqtiga kooban waxa loo baahan yahay oo inaga rabaa حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبة سوداء دواء لكل داء إلا داء واحدا وهو الهرم وحكا استدوي كطاي لكن داء وحقق من ميش داء اعتماده واسيدين هذا كسر قوبي وادلامي هذا سين ولاطه سرير تكورني لكن وحكا السيد وكطاي إيضا وحكا السميسان طيب مرلا سعطان وحار يابس marka waa fiiriye meel kama akhriyo marka malabkii labadii tan nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam kana ilaahi baa yiri labadiiba waa wahyi maxaa ku soo ururiyay marka kulayl iyo maxaa ku soo ururiyay maxaan ilaahay engeg oo labadoodba hadana dawiyiin tan nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam tan ilaahi yiri subhanahu wa ta'ala dadka yar yar cudurka ku yar dadka yar yar cudurka ku yar
dadka waaweynaada cudurku ku badan yahay dadka waaweynaa cudurku labadana dawo u ah bal ilaahay qudradiisa xabatu sawdana dawo u tahay malabkuna dawo u yahay sharti qofku waa inuu gaas lahayn duu gaas leeyahay waa dhibaysaa malabka laftiisuna inuu dhibaa surowdo hoos haddaan u soo daadago maanta haddaynu nahay Soomaali meelan joognaba cudurraa batay waxaa soo batay kansarkii waxaa soo batay sokortii waxaa batay dhiigkarkii waxaa aad u soo batay cudurrada beerka ku dhacaya ninkii hebla beerku dhintaad maqlaysaa waxaa soo batay cudurrada wadnaha ku dhacaya baa aad u soo batay waxaa soo batay labadii keliyahuna waa soo bateen waxaa kaloo aad u soo batay prostatadu waxay tahay mataqaanaa raggaa leh haweenku ma leh waxay ku taallaa kaadi haysta oo kaadida haysa afkeega meel afkeega ku dhagan oo qanjirkani ku jira waa qanjir tilmaamaya inaad nin tahay haddii hadda lagaa gooyo dhalmadaa kaa tegi sababta dhalmadu waxay u tegaysaa qofka markuu dareenka galo intuuna reerkiisa xalaasho ha aadin biyaa imanaya biyaa waxaa la yidhaha madiyi biyaa waxa soo tuuraya oo soo tufaya baashan prostatada af carabiga ku raadiyay waa waaye waxaan maraynayaa inay tahay luqa yoonaaniya ilaa dabbiga badankiisu qobrus buu ka soo jeeday prostatada waanka taas weeye iyaduna way soo badatay asbaab bay leedahay marka ku badato qofka biyo badan cabin way ku dhalan kaadida meesha fadhiisan mudday fadhin 5 salaadood baa suuradu weyse kaliya ku tukado kaadidaas waxay noqonaysaa aakhirka dambe ilaa waa jeermis waa qashin jilka laga saaraa la rabaa biyo maadan cabin ma baxayso meesha ku fadhin baasana barari dooni marka baashaas haday bararto badankana waxay isu bedeshaa kansar iyo isu bedeshaa marka inaga maanta tayna Soomaali dawladdiina waa tii dawladdu waxa weeye waa dahab waa yani sharbay ahayd laakiin sharaf badan bay ka soo horjeeday way celinaysay caafimaadka ka mid ah dawadaba inta fiican biyo fiican waxyaalaha alcabibiya hadda ma xasuusinay laakiin waxaan xasuusanahay dawada iyo cuntada bariiska wadanka la keeni jiray ama kii la beerayay marka meel lagu kariyo ilaa ku jira 100 mitir ku jira oo oran udugka ka soo baxay tani hadda udug ma leh dad wada cunaya udug ma leh waxa loo baahan yahay marka cuntadii dib aan ugu noqono cuntada dib loogu noqdo bariiskana da jawhar dadka bateeqay hadduu dadka teeqi lahaa isagana loo leeyahay way dib loogu noqdaa cuntada dacaamka cunta dhacday baa suurado wadanka inay timaad cunta maaragtay khariban baa suuroobi karta sharaabka haddaan midna soo goro biyaha qola kasta oo biyaha samaysa in lagu ijbaariyo way biyaha inay soo baadhaan sanawiyan sanadiiba hal mar inay soo baadhaan biyaha soo markaysaan waxa ku jira dawo badan macaadin badan marka haddii wixiiba laga saaro oo noqdaan iyagoo khalliya cudur bay isu bedeli cudur iyo isu bedelaya waa biyaha cudur bay isu bedelayaan cuntadana saas oo kale iyaguna waxay isu bedelaysaa cudur bay isu bedelaysaa waxaa loo baahan yahay si sheekh waada ka sheekeeyay nadaafada dhulka nadaafo laga dhigo wixii wasakha iyo bacaha iyo wax laga baaqiyo waxaa loo baahan yahay dawo dhaba dawada faalsada ah wadanka laga ilaaliyo dawada aan dawo ahayn suuroobaysa kiniinki xabadii kiniinka ay in 20 laga dhigo ama 5 ama 10 xabadii kiniinka ay mamnuuc way dawaliye laakiin inaga way ugu banaan tahay waa Soomaalida marka dhalinyarada yaryarka ah waxa hadda ku badan sokor indhahay tiri kaliyahay ka tuuri horu ka dhiman ma si noolaanayo dadka waaweyn waxa ku badan beer xanuunka wadar xanuunka waxyaalahaas ku badan sokortu dadka waaweyn way iska sidan karaan daway qaadan laakiin ilmaha yarbiya ma qaadanayo markuu ku baashan ku dhacdaba horay irbad baa lagu mudaya sidaa darteed rootiga wadanka laga cuno Soomaaliya ilaa koonfur ilaa iyo waqooyi waa daqiiqduna waxa weeye waa sokor socoto
sokor socoto way daqiiqdani waxaan marka aanu dadka u dardaarmaya kuwa dibadda iyo gudaha jira jooga inay cunaan cunto buushiday sida heeda sida qamadiga sida haruubka oo isqabo oo ama laga dhigayo canjeero ama soor ama shuuro laga dhigayo ama shurbad laga dhigayo wax ma aragtay marka daqiiqda waa in la yareeyaa baan dadka u dardaarmaya waxa kaloo dadka u dardaarmaya tufanka badan oo dadka idinkoo reer magaala oo shaqo ku jirin waxba qabanaynin sida maaragtay dugaagga aad cunaysaan joojiya tufanka badan maxaan u jeedaa hilibka badan haddaad cunayso hilibka wax yar ka cuno qiimaad ka qaado laakiin inaad cunto sarar dhan ama waslad dhan maalin kasta aad cunayso waxa weeye ibtideelada waxa kaloo kula dardaarmi lahaa ummadda hadday yeelayso in cuntada laba waqti laga dhigo sidii saxaabada waxay cuni jireen alghadaa walcashaa bas maalis mar saddexaad ma jirin waana labada ugu fiican barqada aroorta hore cuni barqada markay timaado waad qadaynaysaa qadaa baa loo odhan jiray habeenkiina waad cashayni laakiin markaad cashaynayso horey u cashee socod ha ka dambeeyo iyo shaqa ha ka dambayso halkaad ku cashaysay aseexanin sababta waa maxay waxaa la rabaa in cuntadii ay dhaqdhaqaaq iyo jimicsi ay hesho waa lagama maarmaan arrintaas waa kula dardaarmi lahaa biyo nadiifa in la helo oo la cabo hadday kale saad arkaysaan sokor baa dadkii eber ka dhigtay weliba carruurta yaa ugu badan carruurta yaryarka oo waxaan arkay ilmo yar oo hadda dhasho bila ah uu isha kaga dhacay kansar bal xaguu kaga yimi waxba ma cuninba weli xagee looga yimi mahawada waa dhinacee waxbaa lagu duray garanay xataa adibada hindiya joogay iyo malaysia waxay ii sheegeen dadkii tagay waxay dhaha soomaaliya haddaa tiin kasar baa in badana maxaad cuntaan caanaha geeluna qaaday caagad wuxuu geeyey malaysia u geeyey way baadheen waxay dhahan caanahan cabba waa caano fiican caanaha haddii la yidhaahdo caanaha geela ugu fiican waa daawa hilib haddii la yidhahdo hilibka geela ugu fiican kaydaha ku xiga riyaha ku xiga xoogaa waxa ugu liita loda xadiiska ku soo arooray loda oo xasanka ana waxa weeye ilaahay nicmoolay buu ka dhigay soo garan maysa xadiiska dib loogu noqdo xadiiska albani ya xasan ka dhigay dib loogu noqdo waa nicmo min an-ni'am hilibka lodu ku kamid yihiin way dib loogu noqdaa waa xadiis la tasxiixiyey oo kolkii hore la daciifiyey laakiin la tasxiixiyey markii dambe marka waxaan idin dardaarmayaa arrintu say u socoto ma wanaagsana arrintu aad iyo aad rafaad baa jira dhib baa jira hal wanaajiyo cuntada la cunayo sharaabka la cabayo maxaan idhaahdaa hilibka la cunayo wax hadaysan ha noqdo oo waqti leh laakiin haddaynu ka dhigno maalin kasta inaan waslad cunno waa rafaadaynaa midda bal waxaad ogaataan ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga inoo jideeyey isaga ina abuuray 12 bilood bil baa waxa laynoo qoondeeyey inaan afaysanno waxa weeye waa xikma rabbaaniya rukn min arkaan alislaamna waa laga dhigay soo nina ugu taqaddamay uu ka tago barkiisa waxa laga dhigay soonkii baa laynagu booriyey soonku waa daawo marka haddana waxa ilaahay nagu booriyey inaynu ku afurno timir haddii la waayo biyo in la odhan jiray sheekhi la odhan jiray shurayh ibn xaarith alqaadi 120 buu gaadhay waqtigii nabiga waa joogay laakiin nabiga lama kulmin laakiin markii dambe khulafaa raashidiin buu la shaqeeyey muddo dheer buu joogay soo markiisa dadkan cimriga dheeraa oo waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam soo gaadhay dhammaantood laba shay bay iyo cuni jireen al-aswadayn almaa wa tamr bay ku noolaayeen qofkaan marka qabin maxaa ku idhaahday sokor dhalinyarna aan ahayn dadka waaweyn dhalinyaradu uma adkaysan karaan 5 xabba ama 7 xabbo timira iyo maxaan idhaahdaa biyo saafiya
intaa ku cashee iska badaa cuntada kale waa intay cuni jireen dadka cimriga dheeraa weeye innaga laakiin xaaladaas aan u dhaqmayno waxa weeye waxay nagu soo bixi ama beerkaa lagaa geli ama keliyaha ama sombobada ama kaadi haysta meel baa lagaaga iman meel baa lagaaga dhici sababta waa maxay sakaraad jidhka baa inagu rafaadsan waxaan cunayno waxaan cabbayno waxaan qabanayno rafaad baa jira dhib baa jirta soo markaysaa rafaad baa jira caruurtii haweenkii waa la dhibay midda kale waxaad ii sheegi iska ilaaliya inaad cayishaan qofku u suuroobiyo iska ilaali waad ogtihiin odayaashii oo dhan jilbaha laga galay jilbaha wada xanuunaya kulli waxaa ka dhammaaday qolyadii waxaa ka dhammaaday dhaqdhaqaaqii lafii baa isku dhacaya qofkii ma socon karo ma fadhiisan karo ma sujuudi karo ma arkaysaa iyagana waxaa kula talinayaa iyo dadka fayow oo ka baqaya lugaha in laga galo xulbadda cabba maqlaysaan adarkayda xulbaddu odayaasha dawey u tahay odayaasha ingeeg baa ku dhalay jidhkii iyo qabow labadaasaa ku dhalanaya waxaa loo baahan yahay marka jidhka wax jalciyaa loo baahan yahay xulbaddaa kowka ah 2 bilood 3 bilood baad iyo kaa ori marka dambana way kaa baabi joogto u cab marka waxaa kale dawo u tahay borostaata kugu dhici maysa insha allah